Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada qaybtii afraad barnaamijkeena ugu magac darnay yaa tahay adigu. Barnaamijkaasi aynu kaga hadlayn taariikhda Soomaalida barbilow ilaa iyo bardhamaad. Kusoo dhawaada barnaamijka. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar lana wadaag asxaabtaada si ay u bartaan taariikhdoodii hore asal ahaan barta ay ka soo jeedaan cidda ay sir wadaag yihiin iyo cidda keenta geeska Afrika. Haddaba hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelkeena, fadlan dib ugu laabo qaybtii koowaad, qaybtii labaad iyo qaybtii saddexaad si aad macluumaad aad u fara badan oo aadan hore u ogeyn aad uga soo fahantid. Boqoradii Xabsashuud ee boqortooyadii cusbayd ee 1450 ayaa boqoradaasi waxa ay u soo safartay dhulkan geeska Afrika. Boqoradii Xabsashuud ee ka talinaysay faraaciintii xisbigii cusbaa ee boqortooyada cusub lagu yeeri jiray ayaa boqoradaasi waxa ay timi geeska Afrika iyadoo laba sheekaba sheegaan in ay badda soo martay iyo inay beriga soo martay, halkaas oo ay soo gaartay dhulkan Eritrea iyo Soomaaliya. waxayna halkaa u yimaadeen inay ka gurtaan beeyada iyo waxyaabaha la isku carfiyo oo dhulka buraleyda bari oo caan ku yahay iyo xayawaanada iyo waxaas kale ugu weyn muhiimadooda ugu weyn ahayd inay dhulka u yaqaaneen dhulka ilaahiyada, halkaas oo ay ahaayeen dad iyagu qoraxda caabuda iyagoo dadkaas intay buuraha fuulaaniin ay qoraxda ka iftiisan jiray oo ay u yaqaaneen dhulka ilaahiyada ama iyaga u ahaa dhul barakaysan oo ay barakaystaaniin. waxaa kaloo jira taariikh kale oo sheegaysa iyaduna 2800 sano ka hor taariikhda Nabi Ciise naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee in faraacigii reer Kusheeti ee lagu yeeri jiray Saxuura in uu yimi geeska Afrika gaar ahaan bariga. waxaana la soo wariyay inuu boqorkaasi ka gurtay waxyaabaha la isku carfiyo sida maydiga iyo fooxa oo kale kuwaas oo la isku yiraahdo fragrances. waxaa kaloo ay taariikhdu sheegaysaa in boqoradii Xabsashuud inay soo gaartay ilaa iyo Xaafuun waqooyi bari ee dalka Soomaaliya iyagoo soo dhaadhacay hawdka kana guran jiray xabagta iyo maydiga iyo waxyaabaha la isku udgiyo oo dhan. balse ujeedadooda ugu weyn ahayd inay dhulkan u yaqaaneen dhulka ilaahiyada oo ay caabudi jireen qoraxda, taasoo lagu sifayo in geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ay ku jirto wadamada qoraxda ugu soo horbaxdo si xataa aynu juqraafi ahaan u arki karno. haddaba taariikhda ama magaca Ethiopia ayaa waxa uu yahay magac taariikhi ah, magacaasoo ku baxay dalka Masar kadib markii Giriiyiintii ay ka qabsadeen faraacintii dalka Masar, halkaas oo ay dadkii madmadoobaa ay Giriiyiintu ugu bixiyeen Ethiopia ama dadkii madmadoobaa. balse dalka Ethiopia ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada ugu taariikhda dheer ee dunidan maanta aynu joogno iyo qaaradda Afrikaba kuwaasoo soo jiray xilli ka horeysay Nabi Suleymaan calayhi salaatu wasalaam iyadoo ay Bilqiis xukumi jirtay. Aksum boqorkii Kingi Asana markii uu ka hirgeliyay diinta Kiristaanka ayaa markaas bilaabtay maadaama Bilqiis ka hor Nabi Suleymaan ay ka jirtay qayb ka mid ah Ethiopia ay xukumaysay. balse boqortooyadii Ethiopia iyadoo sii socota ayaa boqortooyadii Abyssinia dhalatay oo Ethiopia ahayd, halkaas oo ay boqortooyadoodu iska sii socotay ilaa ay ka soo gaartay boqorkii Najaasha oo aakhirkiisii muslimnimo ku dhintay iyo kii kabcada weeraray ee Abraham oo aan isagu boqor ahayn laakiin ahaa nin boqorkii Najaasha ka horeeyay oo tirsaday inuu boqor ahaa laakiin isaguna fadhiyay qaybo ka mid ah Ethiopia kaasoo tegay dalka Yemen oo ay gumaysan jireen Ethiopiaanku ama Xabashidu. ayaa ninkaas waxa uu sameeyay dadka reer Yemen oo aadi jiray kabcada si ay ugu soo caabudaan waxa ay iyagu ilaahiyo u yaqaaneen oo ay dhagxaan iyo badanaaba ka samaysnaa. waa kii yiri si aysan uba aadin waa inaan kabcada burburiyaa si ay uga joogaan reer Yemen. waana kii maroodiyaasha ka haystay ee kabcada weeraray kadibna Ilaahay u soo diray shimbiraha dhagxaanta wata kaasoo dhagxaan lagu haligay. kadibna waa markii Ilaahay Quraanka Kariimka ku soo dejiyay nabigeena sallallahu alayhi wasallam Nabi Maxamed markay diintu ku soo degtay taariikhdu markay ahayd 610kii taariikhda miilaadiga aynu hadda ku jirno ama 610 sano kadib dhalashadii Nabi Ciise naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu diinta ku fidiyay adduunka oo dhan oo waxa uu diri jiray asxaabo
iyo ciidamo dalka Suudaan iyo dalka Masar halkaasoo lagu gumaysan jiray reer Kushayti kaasoo ay gumaysan jireen qolyihii Semitic Tuuga oo isbahaystay kuwaasoo qabsaday dalka Masar iyo Suudaan kadibna ay bilaabeen dadkii madmadoobaa ee reer Kushayti in ay halkaa ku gumaystaaneen ilaa uu gumaysigii ballaarto oo ay dadkii madmadoobaa oo dhan ay saamaysay meel kasta ay joogeen kuwaasoo lagu gumaysan jiray kuwaasoo badaawada carabtu ay iska gumaysan jireen oo iska xirxiran jireen ayaa Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu u diray reer Masar iyo reer Suudaan asxaab iyo ciidamo diinta Islaamka ku fidisa kana xoreysa gumaystayaasha haystay iyadoo diinta Islaamku aanay ogolayn in dadka Islaamka ah la gumaysto ama cid walba. Nabi Maxamed ayaa asxaab iyo ciidamadiisa u kala diray adduunka oo dhan si ay diinta ugu fidiyaan waxaana markii dambe uu u soo diray saxaabadiisii iyo ciidankiisii rag ka mid ah dalka Itoobiya halkaas oo uu xukumi jiray boqorkii Najaashi kaasoo markaas Kristan ahaa laakiin markiisii dambe muslimnimo ku dhintay iyadoo oo boqorka Najaashi markii dib loo baaray taariikhdiisa lagu ogaaday in uu meelo badan kasoo shabaho Soomaalida calaamadihiisa iyo astaamaha uu lahaa kaasoo dhaqamada laga helay ay khaas u noqotay dadka Soomaalida iyadoo dadka Soomaalida dhaqankooda la suuliyo ama aan la sheegin oo la qariyo ayaa haddaba boqorka Najaashi waxa uu lahaa 3 calaamadood calaamadood oo Soomaalidu khaas u leedahay tan koowaad oo ah inuu ahaa ninkaasi nin diin leh oo dhulka Soomaalida aan laga arag ilaa iminka meel kasta oo laga baaray wax raad ah oo asar oo diimihii hore oo lagaga tagay aan lagu arag oo taasi ay cadeynayso in ay Soomaalidu ahaayeen weligood dad diin haysta diintay doonto ha ahaatee sidoo kale waxa laga helay inuu ahaa nin marti qaad leh oo isagoo aan cidnaba wareysan markii asxaabtii u timi isagoo aan cidna ku oran yaa tihiin ku oran in uu marti sooray taasoo dhaqankaasi ay Soomaalidu khaas u leedahay taasoo xataa haddii carab laga baaray aan laga helin in qofku ilaa uu ku wareysto maahe aanu ku marti soorin dhaqankaasina uu Soomaali gaar u yahay sidoo kale waxa laga helay in uu magangeliyo markii lagu soo weeraray asxaabtii diinta faafinaysay markii lagu soo weeraray in uu difaacay taasna waxa laga helayaa Soomaali xataa qabiilka uu aad istagaalaysa in hadduu qof kamid ah ku yimaado oo uu ku dhaho magan baan ku ahay in aanay dhaqan Soomaalidu u lahayn in uu qofka uu magansaday hortiisa lagu waxyeelayo ama lagu dilo taasoo ku cadeynaysa in uu boqor Najaashi uu ahaa Soomaali iyadoo oo kutubta badan ay badanaaba Itoobiyaanku ay sheegtaan taariikhda Soomaalida idilkeed ilaa Axmed Gurey iyo Sayid Maxamed Cabdulle Xasan haddaanay haddaba sheegin Siyaad Barre inuu iyaga ahaa dhaqan kasta oo Soomaalidu leedahay waxa ka ah in ay Itoobiyaanku sheegtaaniin dhaqamada Soomaalida gaar ahaan wadamada gaar ahaan Soomaalida ku nool waqooyi bari ee Itoobiya Soomaalidaas oo ay sheegtaan dhaqankoodu dhammaantood Itoobiyaanku haddaba iyadoo ay Soomaalidu aanay lahayn asal iyo meel loo raaco taariikhdooda bilowgii ilaa iyo dhammaadkii ayaa waxay ku cadeynaysaa Soomaalidu inay ahaayeen dad weligood soo jiray ee aan ahayn dad iminka dhulka laga helay oo qura laakiin ay noo cadeynayso taariikhda la arkayo iyo markii la baaray DNA iyo haddii Ilaahay ku raayay wadamadoo dhan ay ku cadaanayso taasi in ay Soomaalidu ahayd dad weligood soo jiray ee aan ahayn dad iminka laga helay geeska Afrika markii asxaabtii u tagtay boqor Najaashi ayaa waxa uu ka qaatay diinta Islaamka isagoo u ogolaaday in ay diinta ku faafiyaan gobolka oo dhan halkaas oo qabaa'iladii deganaa geeska Afrika halkaas oo ay ka mid tahay Itoobiya Soomaaliya iyo geeska Afrika wadamada la isku dhaho oo dhan ay diintii ku qaateen qabaa'iladii oo dhan marka laga reebo Tigreega iyo Amxaarada iyo Eritreyaanka ay diinta Islaamka qaateen iyagoo aan lagu khasbin kadibna waxaa halkaa ka bilaabatay cadaawadii u dhaxaysay muslimiinta iyo masiixiyiinta ku nool Itoobiya iyo qabaa'iladii reer Kushayti oo ku kala yaacsanaa qaaradda Afrika sida iyaga oo guurguura oo reer miyi u badnaa ayaa waxaa ka bilaabatay cadaawad aad u xoogaysatay taasoo ku salaysan dhanka diinta ilaa uu ka soo gaaray Axmed Gurey oo kula dagaalamay Abasiiniyiintii ama Masiixiyiintii dalka Itoobiya Axmed Ibrahim Al-Qaasi oo Soomaalidu ku naanaysto Axmed Gurey ayaa waxa uu la dagaalamay Abasiiniyiintii haystay diinta Kirismaska
taariikhdu markii ahayd 1500. Axmed Gurey ayaa waxa uu ku dhashay meel u dhaxaysa Harar iyo Saylac sanadku markuu ahaa 1507 taariikhda miilaadiga ah. Axmed Gurey waxa uu ka soo jeeday boqortooyinkii ama saldanooyinkii ka hirgalay magaalada Saylac ee dhulka Soomaalida qarnigii 13aad. Axmed Gurey waxa ay Itoobiyaanku sheegaan inuu asal ahaan ka soo jeedo Carab, taasoo ay ku qarinayaan taariikhda Soomaalida. Isagoona ahaa Axmed Gurey nin Soomaali ah ayaa ay haddana Itoobiyaanku waxa ay ku sheegayaan inuu Axmed Gurey ahaa nin Carab ah oo asal ahaan Carab ka soo jeeda laakiin Geeska Afrika yimi, iyadoo ay Soomaalidu caddaysay inuu ninkaasi asal ahaan ka soo jeedo Soomaali. Isirkiisa iyo qabiilkiisa iyo waxa uu yahayna la garanayo, ayaa ay haddana Itoobiyaanku ku sheegayaan in uu nin Carab ah oo waddanka iska yimi uu ahaa Axmed Gurey, taasoo aan horey idinku soo sheegay in astaamihii Soomaalida oo dhan laga helay boqor Najaashi, halkaasoo iyagu ku sheegteen in uu ahaa nin Itoobiyaan ah, taasoo ku caddaynaysa in Soomaalida weligeed la qarin jiray taariikhdooda. Axmed Gurey ayaa waxa uu ahaa nin iskoolar ah kaasoo bartay diinta Islaamka, waxaana diinta Islaamka awgeed uu dagaal ula galay dalka Itoobiya, kaasoo ay ka talin jireen boqortooyo ama dad ka soo abtirsada oo ku abtirsada Masiixiyiinta, isagoona qabsaday magaalooyinka Casab iyo Masawa, isagoona ku sii jeeda xaruntii Aksum iyo Lilabela. waxaana uu gaaray magaalada Lilabela isagoo wata ciidamad badan oo reer Kusheyti iyo Soomaali isugu jirta, isagoona doonayay markaa inuu dhammaan qabsado Abyssiniyiintii joogtay dalka Itoobiya. waxaana Abyssiniyiintii ay u yeerteen Boortaqiis oo ay caawinaad weydiisteen si ay uga difaaco Axmed Gurey. halkaana waxaa isku farasaaray oo dagaal iskula galay ciidamadii reer Kusheyti iyo Soomaalidii uu Axmed Gurey watay iyo ciidamadii Boortaqiiska iyo Abyssiniyiintii Kiristaanka ahaa oo ku deganaa dalka Itoobiya. dagaalo badan kadib ayaa waxaa dhacday in Axmed Gurey oo ku dhacay madfac ay soo rideen Boortaqiisiyiintii, halkaasoo uu ku dhintay. Axmed Gureyna waxa uu dhintay bishii February 21keedii 1543. la soco qaybta 5aad oo aad u xiiso badan. dalkeeni maxaa dayaacay maxaa diideen dalkeeni maxaa dayaacay maxaa doonaysan wadinka cilada dege maxaa doonaysan wadinka cilada dege damiir xumadina qarankii ka dhigay daleel hadda dal shisheeye joogtan damiir la'aan hadda dal shisheeye joogtan damiir la'aan oo aad ku doodaan nabad baanu nahay diyaar masana diidaan wixii daawo dhali lahaa warya dabiiba ya qarankan dugaa gu helaa.